الله وبركاته كلنتي وأنا وراسن داوديان كسر دوادا برنامج كأني حق تباع وتضبط كيبا هالمرة عاد كده وتان تلفزيون كسمون نيوز وحينصد يا جوا أحب تفتح اسمع المصل تضبط كنا وحين كسر قادم دونا مشرح حيجي كده مدحوينك وحاجين كأوتر تمح حسب معارض كايوحي بروفيسور أحمد عبدي موسى أبين أو مرتين وقع برنامج كان سلام كان أنا كلا لما قالت هرجيسة أو وقت كان كسر جايب بروفيسور بسودو برنامج حق تباع هي سومالي تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. والما سنتها عبد الفتاح اسماعيل تي في أديقا بعد سوم نيوز ودوهاي أن وقرين برنامج كنا حق تباع أو برنامج ضدك أوسو بيا موسو بندقة حد بوح عصب أما حنسلان هاي كده ذي ضدك وحنكون وعسون إن حقوق بدن أو وباهن ضدك حكوا قاعدة أنا حكاجو ويدينه وأنا كوح لنا أديك إن حقوقك تهاي ما وحكلا صعد أن واحد أكتر دور شدي مدحتوي ده الصومال الآن كحيجين كحسب جوله ويدا ما دور شداس أنتي كده بيسي دقدقة مو بدنين بلدتك الكاس وغير فتيمي سياسة هذا يهلكي هذا كوتش أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. وارنتها دورشة إنك صوب حني سنة بتقولي أقول عضي الله سبحانه وتعالى ما هذا سكله مدحوينا كصوب حي كومت بالدسي حسب أقول ليست دورشة دي مركا حسابتي كله لما حسبي كله ولا بحسب المعارض تدور كي حسب المعارض أيوب أن هذا نوع عيارنا إن أن كشقينه دنت جود dalka iyo dadka iyo toosinta xukuumadda taasina way socotaa marka hawsheedu hadda waa inta wax kale hadda rool kale ku leeyahay xukuumadda ma jirto laakiin wixii toosin iyo tusaale ah xukuumadda iyo danaha shacabka iyo hadda arrimaha taagan ka hadalkooda sida loo yaqaan xisbi mucaarada way hadana roolka iyo doorka waa sax dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyay ee waqtigan ka socda Soomaaliland haday kuwa siyaasadeed tahay haday kuwa arrimaha bulshada tahay xisbi ahaan kasoo dhalina jireen waxaad kala socotaan Soomaaliland wallahi wax badan baa jira crisis baa jira runtii hadda waqtigan xaadirka taagan oo dawladda xukuumadda cusub ay la kowsatay inflation ka kamid ah waxyaabaha ugu daran sicir bararka ku dhacay shilinkii Soomaaliland ويسكت هذا الحكومة دنيا وحكا قبضته وأي شروع صو صارته وعليه ونكسن حكومة دنيا شروع صو صارته وسياسة ضيلتي ما دو سعود سيسو إنفورس قريسو لكن الرمها نوعا وكراءة سعر برركا قابك لقوا جهام لقوا بروجكا سلقوا حلية كل يعني قصيدة ويقردوا ونيد وين يقردوا وانت لهذا أرنتني وحوي يعني وأرنتها بطيعة كستا مجتمع سوماليلاند كان عصته دير دتك عادي أي نورمال كأه وحي هاي إن لو قالوا قابك لو يقان ستيك هولدرز عد كستا أو أرنتني أي سامي سي أما سيستم كان مالي استعمالي أما هنقطع كان عصته أما دتك عادي يكون يبصر يشترين كسوماليلاند إن حي لقى قيب قلية financial institutions بنقية قارك اللولي هاي كوا الدولة حوالدها صرف لياش السوق فردية حسابته معارضك يدد إكسبرتيس أو خبراء وحن تخصصوا قانون له وما تشيلوا خبراء لقى كينا يبناك لكن دد لوكلا أو شوقا ودنك حقوقان واقع كشراء ودنك استعمال السيستم كيمالي جاها intaasi marka ay isu tagaan oo laga qayb geliyo processkaas iyo ganacsatada for example chamber of commerce oo kale waxaan oran lahaa marka ay maskaxda ay aad u tuujiyaan oo ay wax taxliiliyaan analyze garayaan oo ay aad u la faguraan halkan hadda ka fiican baa la keeni lahaa oo iman lahaa malihi boqolkiiba boqol waxaa jira hal maajigo sixir oo waxaan xalinayo laakiin issue noocan oo kala marka la xalinayo qaranka oo taabanaysa oo afa qaran runtii processka lagu ma xalin karo yani sidii kitchen wax cabinet loo yaqaan macna dadka marka ku hareero jooga ama wasiirada kugu dhow
inaad u dirto laguma xaliyo laakiin waxa lagu xaliyaa si approach ballaaran oo inclusive ah oo sida ka waasicsan xal baa ka soo bixi kara markaa runtii waxyaabaha hadda socda tensionka jira dhinacyada qaarkood sida financial institutions oo kale ay leeyihiin annagaa noloda leeyahay iyo annagaa nala cadaadinaya waxaas meesha way ka bixi lahayd because processka iyo xalka qayb bay ka ahaayeen wixii meesha ka soo baxay go'aana marka in lagu dhaqaaqo la fuliyo dawladuna ay fuliso bay noqon lahayd laakiin dee hadda sidaa wax ku socdaan aan ka warsugin meeshay ku intuurto laakiin ilaa iyo hadda wax isbedeli ma muuqdaan talema ka geysateen xisbiga cod ahaan idinku arrintaas markii madaxweynuhu guddiga xule uu gelaya hawshaas ama ma laydinka weydiiyey u malayn maayo waa ditana laga weydiiyo sida ka dawanaan lahayd wayna ka guda ballaarnaan lahayd cidda ka qaybgelaysa arrinta xalkeeda laakiin waxaad moodaa uun aragtidan hore u jirtay xukuumaddii hore aragtidan hore u jirtay ma tii in warqaddii unbaa lasoo qaaday ma garanayo laakiin hadda sidan loo galay dee waa si aada u kooban oo dayiqo cidhiidha runtii weeyaan marka way ka ballaarnaan kari lahayd waana ka qurux badnaan kari lahayd maadaama aad mucaarad ahaan tihiin muraayadda ay xukuumaddu isku daawanayso waxaa jirtay in madaxweynaha somaliland khudbad sanadeed buu ka jeediyey dastooriya sida sharcigu dhigayo labada gole baarlamaan ee somaliland haddii toddobaadkan aynu ku jirno waxyaaba badan buu kaga sheekeeyey khudbaddaas hadday qorshayaal tahay iyo hadday wax la qabtay tahayba inkastoo muddada ay xukuumaddu joogtay 100 maalmood iyo ayaama tahay maxaa idinka dhadhamay ama qiimeyn sideeya ayaa idinka soo baxday markii aad daawateen ama dhageysateen khudbaddii madaxweynaha والله حكومة خطبة مدحوينها تا يتي على مسار كيس وحده وما دحين وقت هذا البود دحيي حكومة دار السوية بقول كي معلومات إن كترتي أما إن دبيا قاعد أنا هذا كل شيء كريم مركا مركا ولي يعني خطبة دي هذا وناكسن ينيد وناكسن بلان سوق الشيال وناكسن ولا لا يمن كراه لكن وحينا فلان ودقن قلان السودان وقت بيوبا هنتا مركا وسوقنا وربنا وقت بانو سنة مدحوينها حكومة ده بل إني حكومتنا لا دسي يبلان كود يقرشوه إن وقت لا سيو وعن فري وقت جه هدا تشابه ده هاي نكبحين لكن يسبدل وين ما موضوع حتى بيتين وحبدن بالتبعية ودن كلا قيب سلامتي ودن كدور الشضاء يصلبتي ولي وجرة حاجة أود قيب سياسة ولي بدن بكرهرية دوام بعد مركز هذا اللي ينحل بانو أما سياسيين هوري وكترسان سياسيين سوماليلاند إسماعيل علم الروبلا ودن بيحل بان كعريب البرا يبقى ركوري سعيد علم الروبلا إن ودن كقيبتي سي بريقة أدمودو إن القضية إلى تحقير لسين السياسة دي معني حاجة اسمع حكومة ده وحيوان لما قعابي يعني وكالة مدبنا هم نقضين أما قاسميال هم نقضين يعني كتير إنه بيصير روح اللي أجاسميال بيصير كحيل إنه لقى مقعابه قبل الله دبر. تجمع ده ويصير هو إلى هاي يقول يقول لا سجى شمات كي. السنة اللي المركي مريسي مال برعكس شيء سيء يأجا ويصير إلى هاي. ده هل كين لتاعنا هذا مانتا وإنه يلا بدي يكون يتدرب كأنه ما تصير كأنه مرين. وحيث السنة ستحقر الآن حكومته أنا تحقر لين دجانك. مع اهتمامي مهمة عن السيرة بعد مدة مركا وسيرو دور ولا مجعبة ديان كلهم مجعبة معنا سمين ميسو ديان كورمر بوباهي وحقبت بوباهي هاي مشاريع بوباهي هاي ما هكلية مال والميلتري زون هو إنه عيدا مدون أي عندنا قرن كإنتو دي بدنا ذي شوغان وأنا مركا مرة دان دقال الصعون everything's okay أرنتاس أرين قنعنا سمادك دقال مداس صول إلا يستناك بريه برني هذا فتملاس قري ولا قضية basically ولا قضية dadkii waxa istii baa lagu celceliyay sidoo hore baa loo yiri taasina marka wadan la wada leeyahay wadan midaysan wadan degan dadkii soo qanacsan yihiin ma noqonayo culaysadan kale ay haystay dibadda inaga haystay siyaasiga ah iyo itraaf doonkan iyo caqabaadkan waxyaabahana way inooga sii darayaan waxayd marka in gudaheena la xoojiyo itraafku inuu iman doonaa tan saamiga
atabaysaan ee macnihii aan dhismaha xukuumadda ka muuqanin xukuumadda marka laga yimaado madaxweynaha la doortay madaxweyne ku-xigeenka madaxweynuhu wuxuu soo dhisaa sida awood sharciga uu leeyahay wasiir ku-xigeenno xukuumad iyo dad shaqeeyo oo agaasimayaal iyo maareeyayaal ah intiiba hadday ka dhex muuqdaan gobolladii barigu sida gobollada kale Somaliland maxaa cadaalad darradu xagee ka jirtaa idinku tilmaami kartaa muuqasho weyn oo hadda ay ka dhex muuqdaan ma jirto wasiir iyo 2 iyo 3 la magacaabay deegaan intaa la eego miisaan kaale تقنعين ميسو يعني لكن هذا حكومة لفتي ومطر بدنا سيدي تيك وريس وارو لكن هذا دقام هذا قار واحد موداني يكون بديه هاي دقام هذا قار واحد موداني لو علي تصالها ما هاد دقان وحبارهم هاد دقان تصالين ما يقاب الحكومة دول سنتها هي وسير هذا هي دقام هذا أي ريجنس كي هي وسك عدها سو ما نقرن إن دقان لو علي وسيره ولو قدروا نقاس بيال جود لو قدروا maareeyaal wakaaladeed deegaamadaasna ama wasiir ama 2-3 wasiir kaliya wuxuu ay ku koobnaadaan cadaalad ma taasi aan markaan taa ka hadlayo deegaamada kaliya waxaan u hadlayaa waxa uu wanaagsan wadan baynu qaran baynu nahay waxa uu wanaagsan midnimadeena wada lahaanshaheena iyo meesha aynu tiigsanayno oo ah inaynu itraaf hello inaynu investment caalamiya iyo maalgelin caalamiya aynu hello inaynu ka gudubno xiisadaha hadda taagan inaga haysta banaanka iyo kuwa dakhliga kala qaybsanaanta ahba taas arintan u wanaagsan tahay kaliya uu advocate gareyn ma dooda ma gobolada bari kaliya laakiin wax wanaagsan wadanka weeyaan gobolada bari hadaynu aynu ku gudo jiraan si soconno adigu siyaasi ahaan waxa tahay siyaasi ama musharax ka soo jeeday gobolada bari oo cod ahaan iyo awood ahaanba muujinayay inuu gobollo ballaaran bariga ah Soomaaliland ka soo jeeday wana markii ugu horeysay uu tartamo jaga musharax madaxweyne ku-xigeen uu tartamo nin ka soo jeeda gobollada bari gaar ahaan Sool miyaan darajo fiican gaarin marka saa loo eego kula dad tartanto calafkina uu ku sii jeeday bilow wanaagsan bay ahayd wax hadda xukuumad ay ku abaal sheeganaysaa xukuumad lagu amaanaya ma waa isku xagayga ka yimid uu hayo xisbiga markaa ku tartamay wadalaanshaha markii Soomaaliland garan laakiin wax ka yimid xukuumad ma ahayn bilow wanaagsan bay ahayd arin wanaagsan bay bilow wanaagsan bay insha Allah taala wayna ka sii wanaagsanaysaa laakiin mas'uuliyadda xukuumadda saaran oo ah in dadka u cadaalad fasho oo maaha kaliya wasiir la magacaabay economic sharing dhaqaalihii iyo mashaariicdii iyo resource-kii iyo qandaraasyadii dawladda waxa in la wadaago dadku iska wada dhaxarkaan oo aan meel kaliya wixii lagu gurin oo lagu rarin taanu ka hadlayo waa taa صح waxa xukuumaddu sameyn kartay weey waana wax laga filayay runtii isbedel baa la filayay wadanku wuxuu ka soo baxay xaalado adag buu ka soo baxay runtii oo santii sano 45 sano u dambeeyay marka bilow wanaagsan baa la filayay laakiin sida xukuumaddu hadda ay u dhaqaaqday ama cusub ay u dhaqaaqday madaxweynuhu u dhaqaaqay si soo jiidanaysa deegaamadaas midnimadiina xoojinaysa qancinaysana inay ka mid yihiin Somaliland ay wax ku leeyihiin oo laga lahayn ilama muuqato adigu hore waxaad u sheegtay in waqtigii tartanka lagu jiray ololaha in madaxweyne Musabbix oo markaa ahaa musharaxii xisbiga kulmiye u tartamay aan lagu miisaami karin musharax u siman gobolada Soomaaliland marka ma leedahay tiiba muuqata dhismihiisa ka muuqata samee loo dhan karaa ma oran maayo taasi campaign bay ahayd olole ahayd ololuhuna waa hadal iyo xanaf badan yahay wax badan baana la yiraahdaa ma oranayo madaxweynaha tii waagaas ama hadaladii ololaha laga lahaa buu ku sifooyay ma oranayaan laakiin waa laga yaabaa in dadka ku hareeraysan la taliyaasha ah ama saameyn kale ay ku timid waa suurtagal laakiin taasi de ololaha campaign baa ahayd ugu dhamaaday tana wax xukuumadda hadda waa madaxweyne waaga mu ahayn waa madaxweyne mas'uuliyad iyo culays iyo qadarin kale ayuu hadda leeyahay marka ma oranayo taa ay isku xirmaayaan inkastoo wali ay 100 maalmood iyo maalmo kooban joogto xukuumaddu oo aan la qiimeyn karin wax qabadka ay sameysay heerka uu leeyahay wax soo qaaday in aan mashaariicda loo siinayn iyo horumarinta oo gobolada Sool aanay ula siinayn intii kale Soomaaliland maxaa taaban kartaa
aad oran kartaa mashruuca waa laga qadiyey gobolada bariga oo waa laga hirgeliyey goboladii kale intii xukuumaddani joogtay dee waxaa laga bilaabay oo hadda jiro oo muuqda iyo waxaanu maqalnay oo qorshaha xukuumadda ay soo bandhigtay leedahay waxaasaan qabanaynaa waqti yar ba hadda joogtay laakiin planka iyo qorshaha xukuumadda specifically waxaasaan gobolada ka qabanaynaa ma muuqato mana aanan arag horena dee waxa uga socday oo wax aada u yar bay ahaayeen wadooyin yaroo dhawaan la bilaabay dabayaaqadii xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo iyo rehabilitation lagu sameeyay cusbitaalada labada dhakhtar ee Ceerigaaba iyo Lascaanood taasna ay ka timid saduqan SDF ay inaga caawiyaan wadamada inaga caawiya ay noogu shubaan lacagta ay ku caawinayaan taas loogu talagalay bay ahayd laakiin wax kale oo mashaariic oo la taaban karo meesha ka jira ma jiraan wax hadda xukuumaddu ay soo bandhigtayna maanan arag weli waxa jirta qayb horumarinta kamid ah loogu talagalay gobolada bari oo dhaqaalaha Soomaaliland mar kasta ku jira miisaaneed kasta adigoo 20 sanadood u dambeeyay waqti ku siman ama ku dhow oo la yiraahdo boqolkiiba 2 in loo jaro gobolada kabka gobolada bari lacagtaas ma ka war haysaan halkay marto iyo waxay ku baxdo iyo sida u shaqeyso waxaan filayaa inay bilaabatay waqtigii madaxweyne Siilaanyo xukuumadda ka horeysa kulmiye inay bilaabatay waxaan filayaa boqolkiiba 2 gobolada bari loogu talagalay ilaa ay hadda wax ka gaaray gobolada boqolkiiba 2 oo la taaban karo oo muuqda ma jiraan waana waxyaabaha runtii yaab kale weeyaan ilaa ay hadda in la bedelay boqolkiiba 2 oo hadda uu madaxweyne qorshe kala soo saaray ama ileen arrin sharci ay ahayd xukuumaddii hore ay sharciyeysay baarlamaanku aan filayay inuu ansixiyey 2%gaasi waxba kama qaban gobolada lamana geyn meelay martayna garan mayno meelay martay iyo cid qaadatay annagu garan mayno laakiin gobolada ka gaaray ma jiraan waa lagu magacaabay waa la hafray baan odhan karaa actually laakiin wax ka gaaray ma jiro wax lagu qabtayna ma jiraan haddana anigu waxaan ku talinayaa madaxweynaha haddii gobolada in wax laga qabto la doonayo si dhaba oo niyadaas ay ku jirto madaxweynaha iyo xukuumadda boqolkiiba 2 in loo sameeyo wakaalad gaara oo qaabilsan horumarinta iyo nabadgelyada gobolada oo loo dhiibo dad nadiifa musuqmaasuq ka hufan oo wax qaban karo aqoon leh waxaan aaminsanahay wax badan oo deegaamadaas ay tirsanayaan bay xallin karaysaa way xal u noqonaysaa ummadda waxaa deeqda wax qabad ciidan aad meel dejiso yani waxa weeyaan ummadda ma deeqdo ummadda waxaa deeqa horumar mashaariic qofka hadda goboladaas Sanaag bari iyo Sool ku nool xuduudahaas fog ku nool soddonkii sano soo u nool wax kordhay aan jirin aan ceer haysan aan dhakhtar haysan aan iskuul haysan Somaliland baad ka mid tahay oo Somaliland baad tahay because halkaa waxaa maray xad 100 sano ka hor Ingiriisku jeexay wax macnaheedu sameynaysa male qofkaas ma qancinayso waxa qancinaya waxa weeyaan wax qabadka waxa ku keenay xukuumadda Somaliland iskuulkan waxa ku dhisay xukuumadda Somaliland dhakhtarkan waxa ku dhisay xukuumadda Somaliland Soomaaliland garan taawi taqrinaysa dadka tan meesha ka maqan oo aan muuqana waa taas taas hadii aan la helinna wadan midaysan oo degan la heli maayo runtii walaasada inaga socda banaanadana waynu u dibacsanaanayna wax badan deegaano badan oo xukuumaddu ay sheegto inay mashaariic ka fulisay ama ay ka fulisay way jiraan lacagtan imika boqolkiiba 2 ee loo jaray kabka gobolada bari magacmo gaar ay ku dhacdood leedahay way musuqmaasuqeen mise dawladdaana ka bixin baad u aragtaa taa dawladda la wadiina ma sheegi karo dawladdu go'aanka way gaadhay xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo go'aanka hadday gaareen dee waxaan u fahmayaa in lacagtaas ay ka baxayso khasnada dawladda budgetkeena ay ku jirto meeshay martay waa su'aal $1 million question waa su'aal $1 million isweydiinaya yaa qaatay xaggay martay yaa cunay maxaa lagu qabtay sanadkii su'aal taala xukuumaddii hore xukuumaddanba iyo kulmiye guud ahaan xukuumadda xukuumaddaasi laakiin lacagtu way ka horreysay xukuumadda kulmiye la xukuumadda udubay la jaray kabkaas oo
nabadeynta iyo ka shaqeynta isku xirka iyo soo dhaweynta dadka iyo horumarinta adeegyada bulshada loogu talagalay in lagaga qayb qaato hadda waxaad muujisay inaanay lacagtaasi aydan ogeyn meel ay marto goboladiina aanay ka muuqanin ma daba gasheen oo dadkiina siyaasadda ku jiray ee kasoo jeeda deegaanada gobolada bari ma daba gasheen oo dawladda ma weydiisan oo ma tiraadeen war waxaan goboladii ku magacaaban in gaadhahayn xaggee ku dambaysaa ama martaa marna haddii aan xusuustaydu khaldayn arrimaha mar aan isweydiinay oo kamid siyaasiyadda xukuumadda dad kamid aan weydiinay waxaan moodayay in la yidhi wasaarado ayaa loo qaybiyaa oo wasaaradaha dee aadhona wasaarado waxay kaga qabanayaan deegaankaas laakiin ama wasaaradaha isku haysta ama wasaaradaha kala qaatay laakiin hadda anigu cid specifica oo ciddaasaa qaadatay ma jirto laakiin lacagtaas waa lacag luntay waa lacag lagu hafray deegaamadaas meeshana ka maqan waan arrin hadda u baahan yani baarideeda iyo dabagalkeeda u baahan ayna ahayd siyaasiyiinta deegaanku inay dabagalaan xukuumaddii hore iyo xukuumaddanba iyaga ahayd mas-uuliyaddooda xukuumadda ku jira waxaa jirta iyadoo arrinta isu soo dhaweyntu inaynu kasii hadlayno in maamulka khaatum ka jira gobollada bari qaarkood sida cayn iyo sool deegaano ka mida ama ka taliya dee ama xukuumadda wadahadal bay wada galeen somaliland dawladdii hore xukuumaddii hore ee madaxweyne silaahi heshiisihii gaadheen heshiisyada muusena inuu sii ambaqaado ayaa laga filayay waxaa jira siyaasiyiin dhaliil ka muujinaya heshiisyadaasi inaanay u socon sidii ay ku habbooneyd ama ay u hirgeli lahayd oo aanu falowgeeda qaban madaxweynuhu ama aanu sii ambaqaadin maxaad kala socotaa heshiisyadaasi halka ku dambeeyeen heshiiska khaatumada somaliland wuxuu soo bilaabmay dabayaaqadii 2016 shirkii horreeyay caynaba iyo ku bilaabmay sidii markii hore uu ku bilaabmay miisaankii iyo dadkii qayb galayay waxba iska bedelay markii dambe shirkii dambe ka dhacay sababa Djibouti iyo Hargeysa kuwa badan oo ka dhacay laakiin wuu socday wuuna soo gabagabaysmay ilaa marka la yiraahdo heshiis fulintii wala heshiiyey waxba la kala qortay la kala saxday madaxweyne silaayi kulli caynaba waqtiyadii kaableynka hadda doorashadii lagu jiray daqiiqadii sanadkii hore laakiin dee wax ka fulay ilaa hadda ma aragno wax ka fulay ma aragno runtii waxaana shaki badanna gelinaya inaanay fulayn nin baa yidhi baa la yidhi soortan cunu doona sansaankeedaan ka aqaana qaabka hadda xukuumaddu u dhaqaaqday oo la dhaqantay gobollada bari ma muujinayaan rajo wanaagsan oo ah in arrimo kuwa ka sii waaweyn oo ah awood qaybsi iyo dastuurka in lagu daro waxyaabihii lagu heshiiyey say u fulin doonto ma garanayo rajo wanaagsan kama muuqato waan maqlayay ciidamo hala qarameeyo maleeshiyada deegaamada jooga waxaad moodaa musalsal ah maleeshiya iyo ciidamo caaglayaala qarameyntood in deegaamadaas lagu ilaawo in 6-7 sano u dambeysay arrintu way ka sal ballaaran tahay ciidamo maleeshiya meel jooga la qarameeyo dadkaasi waxay u baahan yihiin awood qaybsi rasmiya waxay u baahan yihiin iska dhex arkaan awoodda siyaasadeed ee Somaliland waxay u baahan yihiin horumar waana lagu soo celceliyey siyaasiyiintu lagu soo celceliyey madaxweynuhu lagu soo celceliyey laakiin ilaahay hadda wax fulay ma aragno wax dhankaa u jeeda u socdana ma muuqdo maleeshiyooyinka in la qarameeyo soo hordhac ma aha markaa fulintii heshiisyada oo kumay jirin qodobo ka mid ah in ciidan qaran ay ka mid noqdaan iyama dadkaasi hadda ay u baahan yihiin hadda meesha colaada kama socdaan dagaalada kama socdaan ciidamada Somalilandna way joogaan sabada garan dadku waxay u baahan yihiin maleeshiyo la qarameeyay mise horumar bay u baahan yihiin biyo u baahan caafimaad bay waxbarasho u baahan yihiin taawi yani la isweydiiyo u baahan weeye yes hadday heshiiska ku jirtay ciidamadan maleeshiyaadka inta u geysan lahaa in la qarameeyo la nidaamiyo la tababaro rehabilitation loo sameeyo waa arrin wanaagsan laakiin waxa ka horeeya wax badan baa ka horeeya arrimaha hadda ku soo hadalaya oo soo jeedinayso oo qaybsigan ka hadlaynay xukuumaddan iyo siyaasaddan dawladda dhexe in iska dhex arkaan deegaamadii oo saamigoodii ka helaan oo qaybtooda ay ka helaan ma waxaan kaliya advocate garanaya waxa siyaasiyiintu ka hadleen hadda aynu soo magacawnay waana wax muuqda cid kasta u muuqda oo la jecel ka hayso Somaliland iyo midnimadeeda deganaanshadeeda siyaasadeed amni dhaqaale halku ku dambeynaya islaada markaa heshiiskaas
خاتمي الصومال رجال taas xukuumadda u taala taasi heshiiska kaliya ma aha waxyaabo badan oo hore qabiyaad jira awr boogays shirar badan oo ka dhacay meesha la yiraahdo heshiisyo badan oo la galay wali way taagay wax lagama fulin arrimahan hadda buuhoodlo iyada arrimo gaar ah intii buuhoodlo qorolugud waan filaya xukuumaddii hore Siilaan iyo intii ay ku amaanay wax badan bay bilowday oo ah dib heshiisiin deegaamadaasa de noqoto taawr boogays de noqoto taabuu hoodle arrimahaas oo dhan wali waa qabiyo way taagan yihiin waxay u baahan yihiin in muhiimad la siiyo waxay u baahan yihiin dadkii hawlaha waday ee ehelka u ah ama noqoto dhaqan ama siyaasiyiin ama culimo in lagu empower gareeyo oo lagu support gareeyo oo lagu caawiyo inay hore u sii wadaan dadkuna diyaar baa hadda u nabadgeliyo meel ay joogaan oo colaadu dhibaatadeeda iyo horumar la'aanteeda iyo takhallufkeeda dadku way soo arkeen waxaan isleeyahay doorkii xukuumadda agajiid baa ka muuqda wasiir loo diro deegaankaa tag oo lagu soo dhaweeyo ka soo noqo macna u sameyn maysa dadka deegaanka wada hadallo iyo heshiisiin dhaba oo deegaamada waliba meelaha colaaduhu ay ka dhaceen iyo dhibaatooyinka siiba buuhoodle qorolugud iyo aagaas dadkuna waa u diyaar hadda xisbi wicid ahaan idinku door weyn baad ka qaadateen markii hore isu soo dhaweyntaas labada dhinac khaatuma iyo Somaliland iyo heshiisyada ay gaadheen oo gudoomiyaha wicid Faysal Al-Waraabi qayb weyn ku qaatay shirarkii la tagay tahay xubnihii guddiga Somaliland matalayna uu ka mid ahaa ma dhaqaajiseen oo ma ka daba tagteen oo madaxweynaha ma kala hadasheen in hawshii sideedii ay u fusho ama loo sii wado hadda wictiin arrinta gudoomiyaha Faysal runtii dadaal badan buu ku bixiyay arrinta dib u heshiisiinta meel badan uu tagay oo deegaamo runtii fogo ama xagga hawdka ha noqoto dhinaca buuhoodle meel ku dhow ama xagga ha noqoto nugaasha ilaa iyo haddana isagu un baa riixayo daba socday runtii isagu un baa daba socday iyo wasiirada hadda xukuumadda wasiirada horena ka mid ahaa sida aan ka xusi karo Maxamed Xaaji Aadan ayaa runtii aad u riixaya arrintaas laakiin waxay ku xiran yihiin de arrinta madaxweynaha ku xiran yihiin madaxweynuhu inuu arrintan isagu niyad u hayo inuu u soo jeedo inay muhiimad u leedahay iyo miisaan taasi ku xidhnaanaysa laakiin iyagu dadaalkooda way wadaan horena wax badanna way soo qabteen runtii gudoomiyaha iyo wasiir Maxamed Xaaji Aadan marka halka wax ka dhashan karnaa in iyagu hawsha ay wadaan laakiin madaxweynaha aanay wax ka aad uga go'anayn ma oran karo laga yaabaa asbaab anigu aanan ogeyn inay jiraan laakiin dib ma muuqata hadda dardargelin hawlahaas dardargelinayo oo xawligii iyo dadaalkii ay ku waday xukuumaddii hore madaxweyne Siilaan ma muuqato runtii waayo waxaan filaynay in wax badan uma baahna in halkii laga sii wado oo la soo gabagabeeyo xukuumaddu iyada resource ka haysata awoodii fulineed midii ciidan midii dhaqaale Soomaaliya garan haddii ay raqba jirto xagga xukuumadda iyo doonis iyo rabitaan dhaba waxaan waqti badan ma qaatay way fuli lahaayeen marka maalmaha soo socda u deenayna xukuumaddu waxay ka yeesho waxaa jirta in xisbiga mucaaradka ay wadani uu soo jeediyay in guddiga doorashooyinka la kala diro kalsooni darrena uu ka muujiyo oo kalsoonida waa kala noqonay madaxweynahana warqad gudbiyay madaxweynuhu uu ka jawaabo wuxuu yiri waa sharci darro warqadiinu haddana iyaguna way ka jawaabeen waxay yidhahdeen ma sharci darro soo jeedintaas xisbiga wadani uu kalsoonida kala noqday guddiga doorashooyinka xisbi mucaaradatiin oo idinku la simanoo bahwadaag la mucaaradkii oo mucaaradnimo lagu wada tilmaamo waa ka soo horjeesateen arrintaas waxaad tirahdeen maaha waqti la kala diro guddi doorasho arrimahaas bal ka war mar kale arrintan kala noqoshada xisbiga wadani ee commissionka doorashooyinka waana ka warqadda madaxweynuhu ugu jawaabay wadani cabashooyinka soo jeediyana iyana dee waan aragnay waana maqalay waxaan is leeyahay anaan ku dheeraanay waa arrin u baahan in laga heshiiyo in la iska afkarto sidii horeba u dhici jirtay arrin la ignore garayn karo ama la iska tuuri karo maaha waa run labada xisbiga mucaaradka wicid iyo xisbiga kulmiye ilaa xad waa isku mowqif arrintan baad moodaa kulmiye wicid haa
marka wadani waa xisbi mucaarada waana xisbi ballaaran waa xisbi qaran dee lama ignore garayn karo kulli marka hadda waa la soo jawaabay laakiin waxaan filayaa in uun laga heshiin doono ay khasab noqon doonto in laga wada hadlo si loo galaba arrinta in la galo ma idiin muuqataa kalsooni darrada uu xisbiga wadani muujiyey ka muujiyey guddiga doorashooyinka markuu tix raacay qaabkii ay u dhacday doorashadii madaxtooyada 13 bishii November 2017 madaxweyne Muuse Bixi lagu soo doortay saluuga uu muujiyey ma idiin muuqda idinka waxidaha wala qabtaan والله horta wax boqolkiiba boqol perfect ah oo dhameystiran ma jiraan waa laga yaabaa doorashadii in khaladaad ay ka dhaceen laakiin doorashadii waynu ka gudubnay labada xisbi baa arrintaa way aqbaleen si ku aqbalaanba xukuumadda iyo madaxweynaha meeshii ka soo baxay marka commissionka hadda jira boqolkiiba boqol waa perfect oo way dhameystiran yihiin oo ma khaldamayaal weeyaan uma oranayo laakiin arrinta isweydiinta u baahan waxa weeye bedelideeda hadda waxay saameyn oo ku yeelanaysaa waqtiga loo asteeyay doorashada baarlamaanka oo arrin weyn oo muhiim ah runtii oo ka mid ah priority-ga xukuumadda oo ah March 2019 iyo hawshan hadda gelideedu suurtagal ma noqonaysaa in on time waqtiga loogu talagalay ku qabsoomaan doorashooyinka waa arrin technicality laakiin waxaan u daynayaa insha Allah taala kullay arrintan dee xukuumadda iyo labada xisbi mucaarad inay ka wada hadlaan oo xal ka gaaraan arrintan waayo mar rabno doorashadii golaha baarlamaanku inay ka dib dhacdo waqtigeeda laakiin dib u dhac doorasho ku yimaada doorashada dib u dhacda iyo doorashada iyadoo qaladaad jiro dhacda miyaan roonayn doorashada dib u dhacdo iyadoo qalad kasta la saxay dhacda taas ma ka roonta dabcan wixii khalad waa in la saxo weeyaan haddii khaladaad ay jiraan dhaba oo dee la isla eego dee khaladaadka ay jiraan yani xisbi ama qof ama dhinac uu complain garayn karaa waxbuu ka caban karaa oo cabashooyin buu soo gudbin karaa wixii in la isla eego la isla xaqiijiyo waxaan ma jiraan mise ma jiraan hadday jiraan waa in la saxo oo sida markaa doorasho nadiifa lagu galo haddii ay wax jiraanna loo gudbo maxaa lagu xalin karaa ma in commissionka la wada bedelaa ma in qaar la bedelaa ma in waddo cusub loo jeexo iyo shuruuc cusub oo ay wax lagu kabo wax lagu kordhiyaa waa arrin kulley u baahan in laga wada hadlo wada tashi iyo tala wadaag haddii mowqifyadaas la kala taagnaado oo waddanna u lahaado oo kala dirayna hala kala taagnaado idinka iyo xukuumaddiina aad taagnaataan waqtigeedii maaha iyo guddi lama kala dirayo maxaa dhacaya maxaa ku xiga waxaa dhacaya wax wanaagsan dhici maayaan waxa weeye waxa la gelayaa waa doorashadiina iyadoo loo midaysan yahay haddaan la gelin doorasho wanaagsan oo saxa ama wixii laga doonayay waxaynu doonaynaa golo baarlamaan oo wanaagsan dad quality leh tayo leh nadiifa mas-uuliyiin ay noo soo baxaan kala qaybsanna arrinta iyada laguma waajibi karo laguma heli karo saameyn bayna ku yeelanaysaa waxaan rajeynayaa insha Allah taala xal laga gaari doono madaxweynuhu shaqada uu la kulmay guddigii doorashooyinka waxay ka wada hadleen sidii doorashada loo qaban lahaa dhamaystirkeedii arrimahaas horna wuxuu sheegay inay soo gudbiyeen shaxdii doorashada lagu qaban lahaa golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee bisha 3 sanadka soo socda waddanna waa kan la anagu kalsoonida waa kala noqon idinkuna xukuumadda taageerteen marka ma loo joojin maayo saasaa lagu wada yaabay noqonaysaa kula haddii kulamadii iyo wada shaqayntii iyo wixii sii socdaan mise halaysu yimaado horta wixii laga wada hadlo sidee kula xukuumad maanaan taageerina waxaan sax u arkaynay sidii saxda aan u arkaynay baanu taageernay ama aan danta u arkaynay waddanka iyo qaranka laakiin mas-uuliyadda weyn waxay ku dhacaysaa xukuumadda arrinta xal inay u raadiso arrintan xal inay u raadiso waddan kala qaybsan xisbiga waddani aanu de u hadli maafayeen uma ihi laakiin caqliyan dee degaamo ballaaran iyo shacab ballaaran bay matalayaan waana shacabka la doonayo in laga soo xulo baarlamaankii iyo golihii degaamada iyo wixii marka say wax u dhacayaan arrintaas arrin xukuumadda u taalo weeyaan kole anna haddii aan la idmo talan ku yeelno xisbiyaan talan ka yeelanayna wixii markaa aan xal u aragno waan soo gudbin doonaa dee waan arrin hadda bilow ah marka loo eego arrimaha imika
ucidiyo xukuumadda ama ucidiyo kulmiye isku raacaan wadana gaarka ka yahay dadka in badan bay isweydiisaa xisbiga ucid mucaarid buu ahaa imika waa xisbi aan ka yahay ma qayb kulmiye ka midaba ma mucaaridkiiyo si kala noqdayba حتى كيف جواب لي سؤالها حسب أعيد وحسب معارضة حياة بدن وحسب وداني كمعارضة أنا سكوا فقان وأي سكميت كي هنا ويشران وأي مواقف كقاطان حكومة دكدنا لكن مواقف تا حسب أعيد وقاضنا يو لقيا بيني وقته إنه حكومة التغيير ما هو عارين ناشونال إيشو عارين هو كان دنقرن وهي ما حكومة تغيير ما كل تغيير ما وين كده عدد بادية ده سياسة ديمقراطية وكذا على عزابته معارض كي لما وضع مرة مركز طبعا لكن مرة بدنا أيضا وضع مرة يعني ويجرته لكن ما هم مركز وحيوار كان تنقرن بكل دوانان كرا أركتي ده دو كلا لبحث فيه وكلا برنامج وكلا أركتي فركت هذا شيء غريب ومارتي لا ضيع وماها شيء عادي ديمقراطية سامي بدل لي بتلف يعني مستقبل سياسات بد لا waad soo tartantay way soo dhamaatay maxaa kugu xiga waxa igu xiga anagu hadda xisbi baan ka tirsanahay hoggaankiisa aan ka mid ahay sare xisbiga wicid xisbi mucaarad baan nahay siyaasaduna waxa weeyaan waqti fara badan iyo baa iga horeeya iyo dhacdooyin fara badan marka waqtigan u dheerina ma laga yaabo sidii musharaxii ka horreeyay adiga maxamed Rashid Sheekh Xasan oo markii xukuumaddii uu madaxweyne Silaani soo dhisay tartankii soo dhamaaday lagu daray golihii wasiirada inaad ka mid noqoto golaha wasiirada xukuumadda Muuse Marun doorashada kale ka hor suuragal ma tahay wad xagan waaxad taasi waxay u taalaa waqtigeeda iyo xukuumadda iyo xisbiga kale arrin hadda muuqata ama anigu aan dalbaday ma aha laakiin dee dhacdo kastoo timaada waqtigeeda iyo taladeeda ka mas'alada way dhici kartaa siyaasaddu waxa lagu suurtagal siyaasaddu wax joogto istaatiig oo taagan ma way isbedeshaa laakiin kulli anagu hadda xisbiga meel aan uga socdaa ma jirto oo xisbiga ku qanacsanahay hoggaankiisa iyo structurekiisa iyo sidkiisa aan ka mid ahay madaxdiisa hoggaankiisa waxaan soo gaarnay gabagabadii wareysigeena Professor Maxamed Axmed Cabdi Muuse Abyan maxaad talo kusoo ururin lahayd ee soo jeedin lahayd marka laga hadlo loo eego waxaan qodobadeen ka soo hadalnay waxaad kusoo ururinaysaa waxaan kusoo ururinayaa xukuumadda runtii waxaa looga baahan yahay inay muujiyaan sida madaxweynaha leadership hoggaan iyo dulqaad arrimaha hadda aynu ka hadlayno ay ka mid tahay arrintan hadda commissionka iyo crisiskiisa iyo kuwa kaloo badan oo jira waxay u baahan tahay qaab dulqaad hayinnimo hoggaan wanaag in lagu waajaho madaxweynuhu isaga madaxweyne u ah waddanka oo dhan axsaabtan mucaaradka iyo dadkay matalayaan iyo shacbiyadooda isaga madaxweyne u ah ama iyagu hadda horta mayaanay dooran marka halkaa madaxweynuhu inuu ka eego arrimaha oo aanay noqonuun yani xukuumaddii ama madaxweynihii iyo xisbi mucaarad oo ishaya tanaasul arrimaha qaarkood in laga galo laga maarmi maayo waxyaabaha qaarkood mar kasta adigu waxa aad doonaysaa socon maayaan laakiin waxaa loo baahan yahay mararka qaarkood consensus democracy waxaynu nahay curdina waddan curdina faqiira ikhtilaaf aan haysan qabyaalad fara badan iyo kala qaybsanaan shacab ku baysa axsaabtan hadda aynu sheegna badi qabyaaladu ku baysgaraysan yihiin iyo qabaa'il sidee loo saari karayaa waqti way u baahanaysaa in markaa waddanka caynkaas waxyaabo fara badan iyo dawacsanaan fara badan sidii horeba u dhici jirtay iyo wada tashi in laga gudbaa loo baahan yahay waana ku bogaadanaya runtii madaxweynaha labada xisbi uu la kulmay hogaamiyayaashooda oo waa fikir wanaagsan talada in la wadaago axsaabta mucaaradka talada lala wadaago arrimaha qaarkood media waynu ka aragnay laakiin image-ka lama qurux badnay iyo muuqaalku muuqaalku waddan baynu naha madaxweynuhu labada xisbi ama axsaabta mucaaradka marka uu talada la wadaagayo ama arrimaha qaar uu kala tushanayo waa arrin wanaagsan laakiin muuqaalada hadda
muuqday kulamadii madaxweynuhu la yeeshay labada xisbi mucaaradka qarniba kalaba muuqata aniga aragtidayda kulan beeleed buu ogyahay sabab way ka guda ballaarnaan kartaa waddanku waa ballaaraya yani labada guddoomiye keliya inaad u yeedhato oo aada la kulanto oo iyaga keliya aada dalabto arrin muuqaal ama image wanaagsan oo qurux badan oo waddankii oo dhammaystiran ay ka muuqato ma aha in laga badiyo way ku qurux badan tahay waxaa guddoomiyayaashu xisaab bay matalayaan kale oo hoggaana oo leadershipa ayaa xisaabtii kala mid oo kula jira oo la weheliya marka iyagu de madaxweynuhu hadduu iyaga dalbado oo hebel wikaale uu yidhaahdo de choice kale ma leh waa inay u tagaan oo la kulmaan soo maha laakiin fikir ahaan waa fikir aad wanaagsan matalaada madaxweynuhu baan ku bogaadinaya laakiin marka la eego qarannimo iyo waddan iyo muuqaal ahaan way dhuubantay ma qurux badna in laga balaadhiyo soo jeedin in laga balaadhiyo fiicanta laakiin xisbiyadu ma ka wada hadleen iyagu dalabka intuu madaxweynuhu dalbayo ka hor iyagu ma ka leeyihiin wax uga meel yaalla in qaabkaas ay madaxweynaha ula kulmaan annaga madaxweynaha haddii uu dalbado guddoomiyaha uu dalbado ma odhanayno ha la kulmin madaxweynaha ama ha aadi laakiin madaxweynaha laga doonaya inuu muujiyo muuqaal qurux badan oo wanaagsan oo bannaankana inooga baxayo adduunkana uu arkayo innaguna aynu gudaheena u arkayno waddan midaysan bari ilaa galbeed oo la wada leeyahay imageku ama muuqaalku wax badan buu ka qiimo badan yahay fariimo badan buu diraa guda iyo dibadba wax badan buu ka qiimo badan yahay hadalka iyo qoraalka iyo waxaas aad baad mahadsantahay daawadayaal intaa waxay noogu soo gabagaboobay barnaamijkeenii xogtibaax oo aynu ku wareysanaynay musharaxii jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee u tartamay doorashadii dhaweyd ee 2017 Professor Axmed Cabdi Muuse Abyan oo aan ku wareysanay magaalada Hargeysa tan iyo intaanu kan mid la mid ah barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno waa anigu Cabdi Fataax Ismaaciil Mursala iyo bahda telefishinka Sam News oo idinkaga tegaysa dhammaan sidaas iyo nabadgelyo aad baad mahadsantahay Professor. Mahadsantahay Fataax. Thank you.